هاي ده هذا صاحبي محايسة والله وحما لا فاسك soo galay anoo si xaray maanta najiif markay ka soo tagay ilaa had wajiga ورددهم كام حضرت waa iga baxay maqribkii soo kacay meesha ku dhac markay ka soo tagay maqribkii soo kacay سا إيجا تكتي إلا هاد وسوجي ذا ماشي إيجا تكتي إلا هاد جوا ma bixin miya xamreen ma aadin عادي ساك بحلا asalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Somali Home hadday tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar sifa mar walba oo la socoto fiidiyoyaasheena ragga ma dareemaan xanuunka ay leedahay markaa ka tagto meelaad ku soo kortay meelaad ku soo barbaartay meelaad ku ciyaari jirtay asxaabtaada joogaan familigaada joogaan inaad hal mar leh baaga xirato dhaqaaqda xanuunka ay leedahay iyo stresska laga qaado ma fahmaan inta u badan gabdhaha maanta waxaa arkaysa nin markuu guursado way ka dhaqaaqayaan meeshii joogeen oo way ka tagayaan meeshii asaga uu joogay meeshii asaga uu ku barbaaray meeshii dadkiisa familigiisa jooga ayay ugu tagaysaa sidaas ma xaqba inaad adiga joogto meela ku barbaartay asxaabtaada iyo familigaada inaad isku haysato gabarne inaad ka soo wado dadkii ay aqaantay dalkii ay aqaantay asxaabteeda dugsiga isla dhigan jireen miyay fiican tahay ragga i daawanayo miyay qurux badan tahay inaad adi wax walba isku haysato gabadhane waan ku guursado baageeda soo xirxirto ma weydiisin gabdhaha miyay ku faraxsan tahay ma geeshaa oo ma ku haysataa inaad imaato meelaad dadka aqaanin meelaad dadka garanaynin nolol cuswan bilow ragga xanuunka ma dareemaan miya mise waxay u maqlaan gawar waa la soo guursadaa waana laga soo wataa meesha ii garanaysay dadkeedii dalkeedii meeshii maanta boqoradu joogto ay tegayso waa meel Soomaaliyeed waa meel dadkeedii walaalaheeda jooga laakiin weligeed ma ahaanayso sidii ku dareemi jirta xamar sababta ah xamar waa meeshii ku soo kortay waa meeshii dugsiga ku dhigatay asxaabteeda ayaa joogaan familigeeda ayaa joogaan meeshii ay nolol ku bilowday meeshii ay ku baratay meeshii ay ku qoratay alif waaye waa ka arkaysaa murugada wejigeeda ku yaalo murugada hooyadeed maalin hore waa aragteen hooyadeed si u weynaysay arooskii oo la joogo maxaa u malaynaysaa hooyadaas oo hinta u keenay murugtaas ayadoo tahay maalin farxad leh maxaa keenaya inay oyso hooyo Soomaaliyeed wax bilaash ah kuma oyso waa xanuun oo cunugeeda ka tagayo ilmaheeda ka tagayo meelay aqoonin baranayso daday weligood arkin dad ma la ogey mahad bari ka dambe waxay noqon doonaan hooyo walba gabadheeda markay tegayso walwal ayaa ku abuurmaa markay reer u tegayso oo nolosheeda bilaabanayso hooyo walba waxay ka fikirtaa miyuu dhaqan doonaa nolosha dhabta markay tagto oo social media la iska dhaafo hooyo waxay ku fikiraysaa miyaa la dhaqan doonaa gabadhayda sidee loola dhaqmi doonaa maxaa la dhihi doonaa sababta ah meeshay tagayso asxaabteeda iyo familigeeda ma joogaan waa meel fog diyaarado la isku qaadanayo hooyo walba waxay ka fikirtaa farxadda gabadheeda si walba u weynaato hooyo kama weynaanaysid agteeda waxaa ka tahay caruur ayadaa ku dhashay waa arkaysaa hooyooyin niman 40 sano jir 30 sano jir ku dhahayaan cunug wiilkayga yaraa
hooyo weligaad ma ka weynaanaysid. miyay qurux badan tahay inaad gabar ka wado dalkeedii, dadkeedii, asxaabtii ay la soo kortay, dadkii ay la dheeli jirtay, nolol cusub bilaab, reer si fiican aad garanaynin, laga yaabo inay social media la isku arkeen, but reality-ga markii khadka la damiyo, markii shaashadaas mugdi noqoto, noloshii dhabta ahayd ayaa bilaabanaysaa. inta u badan labada qof markay xiriir sameeyaan islama joogaan, waa dad telefoon ku hadlayaan. reality-gii si la isku dhaqmayay dadka warka ma hayaan. qofka wejigiisa runta ah wuxuu soo baxaa guurka kadib. waxaa arkaysaa niman markii horeeto fiicnaayeen, wanaagsanaayeen, dhoola caddayn badan, gacan furan, laakiin guurka kadib kugu noqonayaan mas, kugu noqonayaan waraawe, aadan garanaynin dhibaatada maxaa waaye. sababta qofkan marka shukaansanaysiin qof fiican ayuu ahaa, qof wanaagsan ayuu ahaa, adi waxaa dhahday waxaa hantiin rageed ood ku faanaysay, laakiin markii nolosha dhabta la imaaday oo hal guri la degay, oo ha noqoto hal saxan in lagu cuno, hal koob mise hal bakeeri biyo lagu cabo, qofka personality-giisa real-ka ah ayaa soo baxaysa. that's why hooyooyinka inta u badan way ka murugaadaan ilaa cunuga 5aad, cunuga 6aad aad dhalayso, hooyadaada walwal ma daynayo, fikir ma joojinayso. wallaahi waan ka naxay maalin horeeto dadka internetka gabadha dhahayeen uur ay lahayd, waxay lahayd uur kale qari, oo waxaan guur ma ahayn, isqaris u ahaa, oo si degdeg ayuu ku dhacay. dadkaa dhan caynayeen laga yaabaa 50% inay yihiin dad garanayo. laga yaabaa waxa wareejiye oo beenta wareejiye qof u dhow inuu yahay. adiga ilmahan dhashee walwal isu ku dhaafaynin. imagine hooyadaada ooynayso maalinta guurkaada, xanuun badanaa.